الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمة يرو قابا وكسابسا معنمهان خبرك جلجلي ضمان ضدك مسلمين تا قلوب تودا ميل كستو أي تشوغان نندتك سياسي ويقانان نرغ عداء إنو يهي إنو دقيقة واحدة قدهت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا صحاحة ودقيقة قدهت وحويان وكم مقعابي إنا يهين فالسو أي ولادة شابك قوتان. سبحانك هذا بهتان عظيم. حديث صحيح البخاري يا صحيح مسلم وكتبت لألفي أقول صحيح صن أي بهذه السهولة هي بهذه الطريقة أي فالسة كن قنا هيان كن يا أفر بقول أو سنة كبضا ما أين وارين من أين شوجين أحاديث تاسي أدت كذابين أو فربضا أيا إسكود يا إن الدميان دمين واجي ولا لي الخبر كاسي وحو تصينا هيا ننكا إساقا وحويان مدحي سعر ريستي أو دادا وحويان ماشا وكجاري لدنان إيه حشود ضرّ إيه أخلاق حمو إيه ديرنان وكسو دولي مانتي مسلمين تا دحلك أي هايستان كي أقوينا وحويان علمي نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقد حلي وحو عقلي سقابا أوتصي وحويان أرنكا إساقا إن لطعني أحاديث النبي فالسة لقوم مقعابه إن وحويان هرمركو وكتشره إن وحويان دمركي الحقيري أو الليدي ما أنتنا وحويان هرمر أي جارسيين أدونك هوين كافرات وآدي ولا عجبي انتي وحمامولا هيان سيدا أي أهايان إيا وحويان دقن كودا سيدا أقو تعثري وحان لنا هاي نكاسي وحو كسو دولي مسلمين تا أصل كودي أو دين كودي أبو كسو دولي أساقا إيا كوكالي أو جيدها فودا كوهايا أو فيرسانايا بل سيدا مسلمين تو أغا جواب عليان وحويان وحاد أغاتان دين كان إلهي با سودة إلهي بانا إلى شنية سبحانه وتعالى فضائحظة عيبها نمال بننبا قد كدعها هي أو فضيحوبها هي كلمة بوكو هضلي نبي صلى الله عليه وسلم وحو يري قفك وحو كو هضلي يا كلمة أوران كفير سنن مركاسو نارتا كشلوانا هيا وحكف قام بدن قرح كصوبح إيا قرح ودع وحكف قام بدن أيو سببتي نارتا وشلوانا هيا نكاسي وحويان سياسيين من متله ومت صومالياتنا وما هذي من متله قبيلنا من متله أخيار إيا قب إيا قناعستنا من متله ونفتيسا وقدر يا مي الدين حما تصينها يوي إلهي وحو الله ومن يهن الله فما له من مكرم قف إلهي إهانيي وإلهي أود لينا هيو عد كرامين كرتا أو عزين كرتا ما أجرت وحو أركي وحوين إلهي تهي دلالك يركع meelaha uu tagay oo baasaboorka jinsiyadaha uu ka qaatay oo wareegahayo xadaarad iyo ilbaxnimo inay ku gaareen iyo inay dheer yihiin muslimiinta wax kale ilaahayna wuxuu ku tilmaamay dadka uu sida u amaanahayo inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila kuwaasi xoolaha way ka liitaan wa xoolaha kale bal way ka sii liitaan waana ka sii lunsanaan badan yihiin maxaa yeelay xooluhu qofka iska leh waxa weeyaan way u soo hoydaan wayna yaqaanaan gurigiisana habeenkii waa ku soo hoydaad laakiin kuwaasi ilaahaygii maamulayay oo arsaaqahayay oo abuuray oo iska lahaa ayay waxa weeyaan diideen inay u soo hoydaan oo ay caabudaan ay diideen akalatul qiradati wal khanazir dadka doofaarka iyo daanyaradu cunno ay u yihiin iyo kilaabtu haddii maanta aan u aragna annagoo muslimiin inay dayasho mudan yihiin oo in la weynayo ay mudan yihiin waxa weeyaan siday u dulloobeen ba ilaahay inoo dullaynahaya wuxuuna fahmin ninka isaga walillahi al'izzatu walirasuulihi walilmu'miniin ilaahay subhanahu wa ta'ala izziga agtiisu yaala taacadiisa lagu gaara mu'miniinta ayaa ilaahay taacadiisa ku cizoobay taasuuna fahmin waxaan rabaa inaan baraarujiyo ninka isaga
iyo kooxa uu ka mid yahay waa kutubo xooro asalkooda dad quraanka loo dhigay cilmiga loo bilaabay cilmiga wax ka dhadhamiyay weeyaan markaasay insilaaq uu ku dhacay oo musiibadaas maanta aad arkaysaan ay ku dhacday waxaa laga yaabaa waxa u geynahaya oo ugu badan inay tahay bal inay gaaladu isku dayaan inay bari ku soo saaraan inay bari ku taageeraan inaad bal xil ku heshid inaad magac ku heshid kuwaas u sacbinahaya oo cawaamta ah oo ag taaganna bal wuxuu u tusinayaa in xuquuq ka maqan u soo dhicinahayo bal waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala idankiisa haddownan ka toobad keenin oo si degdega uunan oga laabanin waxa weeyaan adduunyada dulli baa u yaalla aakhirana hoog iyo baaba u yaalla xadiidkan uu tacninayaa waa saxiixu albukhaari iyo saxiixu muslim iyo sunanka iyo masaaniiddaba waa ku yaalla macaanidiisana ma uunan fahmin ahlucilmigiina ma uunan weydiinin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xadiidka lafdi ahaanna asagaa ugu dhawaaqay macnaha xadiidkana nebigu asagaa fasiray markii la weydiiyey naaqisaatu caqlin wa diin waxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku fasiray aayaddii qur'aanka ahayd oo ahayd haddii qof raga la waayo beddelkiisa laba dumar iyo markhaatiga ha buuxiyeen halkaasay tusinaysaa midda kale nuqsaanta diinkana waxa weeyaan haweenaydii oo caafimaad qabta soonkii iyo salaaddii tukanaysay ayaa xaalad ka mida xaaladaha ay ku imaanaysaa markaasay soonkii joojinaysaa waxa weeyaan salaadiina ay joojinaysaa nuqsaantaas diinta oo ku timidna mid iyadu ay ku dambaabaysa ma aha ee waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala dumarka uu u sharciyeeyo u jideeyey weeye inaysan tukan oo aysan soomin waxaan leenahay ugu dambayn walaalayaal ninkaa isaga ah waxa weeyaan ha laga digtoonaada sharta uu xambaarsan yahay oo uu wado asaga iyo kuwa la mid ahba iyo tacniga diinta islaamka ay tacninayaan waa inaan cod la siinin waa inaan la taageerin waa in ilaahay dartii looga bari noqdaa waxa uu ku soo duulay waa diinkeenni sida culimo badanna ay baraarujiyeen kuwa badanna waxa weeya insha allahu ay uga hadli doonaan waa in ninkaa isagaa ummadda looga digaa fasaadkaas waxa weeyaan uu wado iyo ta'aurka uu ku ta'aursan yahay oo khatarta ah dadkaas waxa weeyaan wax xadaarada iyo wax nolol ay haystaan aan la arag ilaahay wuxuu yidhi innahu laa yuflixu lkaafiruun gaaladu ma liibaanaan liibaan ay haystaanna ma jirto waxa ay garanahayaan waa dhaldhalaal yar yar oo maalmo ah fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir asalkoodana saciiro ayay ku dambaynahayaan markaasay waxay leeyihiin haddaan wax maqli lahayn oo aan caqli lahaan lahayn saciiro asxaabteeda ma aanan ahaanin sala allahuma calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin